xilmi salaad cali cabdi gudoomiyaha cusub ee gobolka Galgaduud oo magacaabistiisii kadib maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayay soo dhaweeyeen mas'uuliyiin iyo dadweyne aad u fara badan doqor Dhuusamareeb macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ku-xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda Cabdi Xaashi Caroole saraakiisha ciidamada kala duwan iyo agaasimayaal ayaa gudoomiyaha gobolka u muujiyay in laga sugayo isbedel maamul iyo shaqo ballaaran oo laga qabto gobolka gaar ahaan isku xirka maamulada degmooyinka gobolka ee muddaba ahaa kuwa aan hoos imaanin gudoomiye gobol iyo qorsheynta howlaha gobolka ka socda ee aan looga maarmin in laga jeheeyo xafiiska guud ee gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha Dhuusamareeb macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow oo ku hadlay afka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Galgaduud ayaa soo dhaweyn kadib sheegay in safarka gudoomiyaha gobolka uu ku soo aaday xilli laga guul gaaray ka hortagida rabshadihii hubaysnaa ee lagu carqaladeynayay amniga caasimadda iyo deegaanada ku xeeran bacda salaam waxa sharaf iyo amaan runtii noo ah maanta inaan ku soo dhaweyno aeroboorka caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb gudoomiyaha gobolka Galgaduud xilmi salaad cali cabdi gudoomiye ku soo dhawaw gobolka ku soo dhawaw caasimaddaadii ku soo dhawaw shacabkaagii iyo runtii dadweynahaagii oo aad iyo aad kugu heelan dibka intaad maqneed oo aad la socotana waliba maaragtay cadawgii ku soo duulay ka guuleystay oo Ilaahay oo guuleeyay roob u da'ay wadankii oo maaragtay nabadna ah roobna ka da'ay ku soo dhawaw aad iyo aad inoogu runtii farxad weyn noo tahay inaad maaragtay nala wadaagtid maanta barwaaqad aan haysano soo dhawaw gobolka ku soo dhawaw deegaankaaga mar labaad ugu dambeyn gudoomiyaha cusub ee gobolka Galgaduud xilmi salaad cali cabdi ayaa u mahad celiyay dadka soo dhaweeyay nabadoonnada odayaasha gabdhaha ururka haweenka ururka dhalinyarada waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi waana mahadsantihiin tan kale sida hadda gudoomiyuhu u sheegay aniga waqti yar baan maqnaa marka magacaabiddooda hadda dhacaysay waxaana deegaanka ka dhacay isbedello badan oo lagu soo qaaday duulaan ilaahay mataqaanaa mahadiina waxaad moodaa in hawshaas hadda dhammaatay oo dhibkaasi uu deegaanka ka fududaaday muddana taagnaa waxaan rabaa inaan hal mar meeshaan baaq uga sii jeedsho wixii arrintaas lagu qalday ka qayb galay ama niyad uga qayb galay ama adin uga qayb galay ama mas-uulba ka ahaa horta marka kuwaad waxaan leenahay ilaahay ha soo hanuunsho ilaahayna waxaan ka baryaynaa haddii hanuun waayaanna ilaahay inuu gees naga mariyo dadkii duubsaday oo la qalday marar horena waa la qalday ayagana waxaan leenahay deegaankiinni u soo laabta dadkiina ka qayb gala midnimada ayaa wax badan noo tari karta waxaana rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan dhicin deegaankeennu nabadgelyo la'aan noocaas oo kale haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan si gaara mahad ugu soo celiyo ciidanka amniga oo ka kooban qaybo badan kuwa federaal iyo kuwa deegaankaba oo gorgor ugu horeyso booliska militariga nabad sugidda asluubta oo si geesinimo leh oo sharaf ku jirto deegaankii u difaacay horena u difaaci jiray haddeerna weli diyaar u ah inay difaacaan annaguna waxaan ku dadaali doonnaa inaan garba u noqonno hor kacno cadowga ilaa badda naga haysana aanu ku tagno haddii ilaahay idmo gobolka Galgaduud oo gudoomiye la'aan ahaa wax ka badan 3 sano ee la soo dhaafay ayaa iminka yeelanaya maamul gobol oo si toos ah uga amar qaadan doonaan maamulada degmooyinka kaasi oo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Cabdullaahi Warsamo Roble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.